magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark waxaa lagu qabtay shirweyne ay yeesheen qaar ka tirsan beelaha Soomaaliyeed. shirkaasi ayaa waxa uu daba socday shir dhawaantani lagu qabtay dalka Ingiriiska. warkaana Denmark waxay nooga soo diray waryaheena Bashiir Salaad Ugaas. shirkani oo ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana looga hadlayay sidii lagu dardargelin lahaa midnimada iyo isku duubnida xubnaha ku abtirsada beeraha Habargidir iyo Duduble, iyadoona ay ka soo qayb galeen shirka oday dhaqameedyo culimo u diin aqoon-yahano siyaasiyiin kuwaasi oo ahaa kuwa ka yimid qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda tan Yurub. shirkan oo ahaa mid ay gogashiisa fidiyeen xubnaha jaaliyadda Copenhagen ayaa waxa uu ahaa mid daba socday shir dhawaantani lagu qabtay dalka Ingiriiska, iyadoona ay sheegeen inay ku adeegsan yihiin waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi. sidoo kale xubnihii goobta ka hadlay shirkana ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa xubno iyaguna ka yimid wadamada ay ka mid yihiin Ingiriiska, Sweden, Norway iyo waliba qaybo kale. waxaana guud ahaan dadyowgii ka soo qayb galay shirka uu ahaa mid markaasi si weyn ay aad ugu soo dhaweeyeen sida ay wax u soconayaan, sheegayna inay doonayaan in la helo midnimo iyo waliba isku duubni beelaha dega gobolada dhexe. salaan dabadeed halkan waxa ku shiraya afarta Habargidir iyo adeerkood. waxaan leeyahay afarta Habargidir iyo adeerkood hadday America joogaan, hadday Yurub joogaan, hadday Asia joogaan, Afrika iyo dalkii hadday joogaan, laba kasto kamidi meesha ay ku kulmaan hays weydiiyeen maxaa inoo dana hays weydiiyeen. wax kale yay isweydiin waxa u danana waxa ugu horeeya nabadgelyada, iyaguna kala nabad gala, dadka dariska iyo islaamkuna ka nabad galo, iyaguna kala nabad gala. intii soo abaabushay xafladatan aad iyo aad qiimaha u leh waqtiga badan iyo magaranaysa dhaqaalaha iyo intaba ku soo bixisay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa fikradan aanu maanta halka ku hayno dadkii hal abuurkeeda lahaa iyo intii kala qayb gashay iyo intii ku ayday intaba. waxaanu ku shiraynaa waa wanaag, waa walaaltinimo, waa islaamnimo, waa Soomaalinimo, waa soo dhaweyn, waa gacmo isqabsi. waxaad ma ogtihiin maanta haddii xataa nin iyo xaaskiisa la heshiisiyo waa qodob wax qabashada Soomaaliyeed kamid ah, waayo noloshu usrada ay ka soo unkuntaa midba mid buu ku sii daraa midba mid markaas weeye. marka inaan wax u qabanayno, waxna qabsanayno, waxna aanan u dhibayn ha gaarto fariintaasi walaalaha Soomaaliyeed oo dabada jooga ciday doontaan ha ahaadeen. inta la sheegay waxa la rabaa inaan meesha looga harin ee qof walba meesha uu ku leeyahay ama dhaqaale ha noqoto ama xoog lagu bixiyo ha noqoto inuu u diyaar garoobo oo uu faraqa ka qabsado meesha uu ku leeyahay. haddaan intay isu nimaadno cuntadan macaan iyo fadhigan wanaagsan isugu nimaadno cabaar sacab isu tunno aanan meesha ka qaadin wax faa'iido ka dhalan maayaan. waxa la rabaa in marada dhexda lagu xirto oo gabdhuhu u hormaraan. shirkani oo ahaa mid la isaga ka yimid inta badan wadamada ku yaala qaaradda tan Yurub oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Sweden, Finland iyo waliba dalkani lagu qabtay ee Denmark ayaa waxa dadkii ka soo qayb galay iyaguna ay ka warbixinayaan sida ay u arkaan iyo waliba arrinta ku aadan in la dardargeliyo hadafka shirku uu ku saleysnaa. gabdhaha UK Ingiriiska Habargidir iyo Duduble anagoo ku hadlayna waxa weeye waxaan dhowrayna ma naqaan adduunkii hore mar buu gaaray. waxa weeyaan adduunkii waa isbedelay, in wax la qabto ayaa loo istaagay. waa la socotaan hadda wixii ka dambeeya xabad ma jiro, ninkii jaqjaq yiraadana madaxa waxa ka saaraya rag loogu talagalay ayaa dilaya. wax dagaalamahayo dambe ma jiraan. dalkayagina aan dhisno, dadkayagina wax u qabanno, magacayagana aan kor u qaadno. shirkan oo nuxurkiisu ahaa oo daba jooga shirar hore oo lagu mideynayay beelaha wadadega gobolada dhexe oo ka soo bilowday Ingiriiska, Birmingham, London, Malmo, meelo badan kale ka soo dhacay. kana uu ku daba jooga maanta si wanaagsan buu noogu dhacay. dad badan baa isugu yimid oo gobolada badan ka yimid, wadamo kale ka kala yimid. ujeedaduna waxay ahayd dadkan qalbigooda in la isku xaaro, midnimadooda mataqaan lagu wacyi geliyo si ay mataqaan qurba joogta u dhalatay deegaanada gobolada dhexe ay ugu helaan fursado
iyo jaanis iyo waxgaradnimo ay u tagaan gobolladoodii dadkooda u mideeyaan. xaqiiqdii annagu waan aaminsannahay arrinta midnimada iyo nabadda horena waa uga shaqaynay waa u wadnay hawsheeda waa lagu dhex jiray waxaana aaminsannahay iyo nabad la'aan iyo midnimo la'aan inaan wax lagu gaarin ka shaqayn guddi midaysan oo ay yeeshaan wadamada Scandinavian-ka guddigaas oo ka mid noqon doona guddiga dhexe ee jaaliyadda Habargidir iyo Dudubliya Yurub. qodobka saddexaad diyaarinta guddi ka qayb gala qabashada shirweynaha ee gobolada dhexe oo aan u jeedno Yurub in ay hal guddi oo midaysan iyo dhaqaalihii oo midaysan in ay hesho North America sidoo kale ay hesho Africa ay helaan Asia ay helaan ana isugu tagno meel inta guddiyada isla anakoo is afgaranay isku jaangoyna ah in aan markaas u gudubno gobolada dhexe. waxaan ka imid wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Malmo aad ayaan ugu faraxsanahay shirkan aan ka soo qayb galnay aad iyo aad ayaa farxadeedu waxay u tahay siyaado walaala iska arabsado goormadi isku diro ayaa guul gaaharo oo isgargaahari karo ayaa guul gaaharo oo isgargaahari karo haddaba guule heestayaa loo gacmaha isqabsada haddaba guule heestayaa loo gacmaha shirkani lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Denmark ee Copenhagen isla markaana ay xubnihii ka soo qayb galay guud ahaan ahaayeen kuwa ka siman in wax laga bedelo fikirka beelaha ku abtirsada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyadoona shirkani uu yahay mid daba socda shirar hore oo lagu qabtay dalka Ingiriiska iyo sidoo kaleeto isla qaybo kamida wadamada ku yaala qaaradda tan Yurub. Bashir Salaad TV-ga caalamiga Somali Channel Copenhagen Denmark.